maalinta lagu daaday kalamaan hadin kooxda oo sababtan uga had weeyba ahayd iyo klubkooda ma ay soo bandhigin qodobada ama xeerkan qabanaya ama sababtan looga saaray kooxda markaas shir jaraa'id kaas uu bay ku sheegeen oo idin lamay soo hadal ayaad leedahay lamay soo hadal anigu muddo 2 sano oo ka maqnaayo xiriirkaygu uu yaraa kooxda laakiin shirkan jaraa'id ay qabteen baa ahaaba xitaa mid marka ay bulshadu ay kulay wana la arkeen bulshada inta badan oo saxaafado badan ba ka hadlay shir jaraa'id wuxuu ahaa siyaasadeed mid faneed ma ahayn marka arrimahan ay idinku soo oogeen maxaad ka leedihiin ruuxaantii arrimaha ay idinku soo oogeen adigoo iyaga aad baan u eedeynay kooxda ahaan sababtan oo eedeynayna waxay ahayd magacaan wadani baa ahaa geeska Afrika geeska Afrika ma ahaan hargeysa bariyo berbera oo gaareen markaan ku geeska Afrika man ku gudub jirnaa dhinacna ma dhaafin wax xeer jibinayada qodobada geeska oo sameynayna ma jiro marka wallahi waa arrin aad u xumaaday marka iyagu ma xidigaha geeska ma waxay leeyihiin magaalooyinka aad magacaawday hadhaafina miya waxaan lagu haystaa Nairobi joognay muqdisho Djibouti Suudaan baan hadda kala soo hadlayaa intaas oo dhan geeska Afrika ma ku dhex jiray dhinaca man dhaafin ma la hadashay fanaaniinta kale ee Yurubgeeyo iyo Hanad iyo Hodan Cabdiraxmaan idinku ma iswareysateen may ismaan wareysan oo lama hadin markaas ma wareysan way ugu dambeyntii Nicmaan goorma aad ku noqonaysaa Hargeysa niyo Hargeysa horta indhow laga yaabo inaan ku noqdo hadda waxaan u socdaa Tanzania ayaan safar u ahay bixitaanka Suudaan ka baxayo marka insha Allah waxaan islaahay